xubnaha mucaaradka maanta magaalada muqdisho ku shiray ayaa waxaa idinka wadaa arrin cajiib ah oo ay isku raaceen. arrinkan waa istaraatiijiyadan waxaa loo yaqaanaa encirclement oo ku qabo madaxweyne xasan sheekh oo ah lagu qabto asaga iyo dowladdiisa. siyaasadaas ama qorshaha istaraatiijiyada oo meel laga soo maanguuriyey meesha laga soo maanguuriyey iyo muuqaal waa idin wadaa. tan marka istaraatiijiyadan oo ku kalifi doonto xasan sheekh laba midood inuu galo wax loo yaqaano power sharing awood qaybsi oo xubnaha mucaaradka maanta shiray aa arkayseen in la siiyo ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan iyo sidoo kale xubnaha wasiirada kuwooda ugu awooda badan, tusaale ahaan wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda, saddexdaas in la siiyo iyo baarlamaanka lasoo xuli doono markii laba loo qeybay qayb ka mid a mucaaradka inay qaataan. xasan sheekh taas wuu wajahaya waa midda labaad uu wajahayo istaraatiijiyadan maanta mucaaradka edegeyn ayaa waxay tahay in magaalada muqdisho ay ka dhacdo laba dowladood, laba madaxweyne, laba maamul isdaba ordayo. taas labadaas qodob hadda idin sheegay oo gebi ahaanba madax xanuun iyo waxaan u fiicnayn oo ah dowladda hadda jirto ee xasan sheekh. aan dib ugu laabana marka istaraatiijiyadan encirclementiga laba nin aa wato, laba nin oo siyaasadda geeska africa say tahay u fahmay. nin waxaa lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, nin kale waxaa lahaa xasan cali khayre. labadaa nin waxay kasoo maanguuriyeen barnaamijkan hadda idin sheegaya encirclementiga oo ku qaba xasan sheekhda. waxaa laga soo maanguuriyey doorasho ka dhacday 2007 dalka Kenya. nin la yiraahdo Mwai Kibaki iyo waxaa tartamay nin la yiraahdo Raila Odinga. Raila Odinga wuxuu ahaa mucaarad, Mwai Kibaki wuxuu ahaa wax loo yaqaan incumbent, madaxweynaha waagaas xilka ku fadhiyo ahaa. Kibaki wuxuu kasoo jeedaa qabiil loo yaqaan Kikuyoda oo la sheego inay ugu tiri badan yihiin yani dhulkaas Kenya. bas doorashada markay dhacday Mwai Kibaki waagaas doorashada ay socotay wuxuu isticmaalay ninka la yiraahdo Raila Odinga qodobo aad u fara badan oo ay kow ka tahay musuqmaasuq iyo xatooyo iyo dhibaatooyin fara badan oo Mwai Kibaki waagaas lagu soo cadeeyay, laga soo bandhigay xitaa saxaafadda ee ka hadashay. musuqmaasuqa ugu weynaa waxaa la dhahayay Anglo leasing, waa lacag aad u tiro badan milyaanaad gaaraysa oo Kenya ah in loo isticmaalay in qalab lagu soo iibsado oo baasaboorka noociisa elektroniga ah lagu daabaco oo magaalada Nairobi, lacagtii iyo qalabkii oo meel ka bixin la waayay. taasoo dadka Kenyaanka aad uga xanaaqeen, laakiin waxay u noqotay fursad dahabi ah. ninka la yiraahdo Raila Odinga shicibkii ayuu ku kasbaday maadaama uu soo bandhigay cadeemo aad u tiro badan oo musuqmaasuq oo la xiriiro Mwai Kibaki oo waagaas madaxweyne ah. joogaas faanteen xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur waxay dhaheen saaxiib fursadaas oo kale ayaan hortaalo. marka waxay ku hoolan yihiin xubnaha mucaaradka kuwooda ugu afka dheer ee wax akhriyo xasan sheekh ee aan dhahay xasan khayre iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur waa dad haayo emailada iyo telefoonada World Bank iyo IMF-ta iyo dowladda Turkiga iyo dowladda Kenya iyo dowladda Qatar iyo waxaas oo dhan ay haayaan. marka anigu waxay ila tahay in cadeemo ay haayaan musuqmaasuq dowladda hadda magaalada muqdisho fadhiso laga haayo, yani qodobo fara badan oo musuqmaasuq ah. alaabihii aa soo gadanay ee dowladda lacag fara badan ee shacabka Soomaaliyeed laga qaaday canshuurtii ee la soo dejiyay inta ka baxeen, qalbkii agabkii la soo dejiyay inta ka baxeen. madaxda Soomaalida hadda xilka hayso guryahan tirada badan adduunka ay ka gateen lacagteeda intee laga keenay, waxaasoo dhan cadeynteeda haddaysan dowladda Soomaaliya haynin adduunka wuu hayaa. saas ma u socotaa? Maraykan ku siin karo, Yurub ku siin karto, wax adduunku maanta wuxuu noqday meel aan cadeynta ugu yar ma qarin kartid la soo bandhigaya. raggan marka anard gacana u taagay xasan cali khayre iyo ragga kale. Sheekh Shariif aska masuuf waay, Sheekh Shariif waa suufi asaga wixii loo kale iska qaataa waa nin aftahan ah, af Soomaaliga si fiican uga hadlaya Carabiga, laakiin sheekada galgalka adduunka wax ka socda siyaasadaha iyo qaribaadda iyo sheekadaas cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali khayre u daa joogada. marka sheekada waxay tahay barnaamijkan encirclementiga qodobka ugu weyn ka soo dhaxbaxay horta wuxuu yahay discredit xasan sheekh bilaha soo socda inta doorashada Soomaaliya 2026 aan la gaarin. ummadda Soomaaliyeed ha loo soo bandhigo musuqmaasuqyada jiro, xatooyada jirto, waxaasoo dhan oo annaga hadda cadeynteeda aanan haynin, aniga shakhsiyan aan heli karin. laakiin xubnahan mucaaradka maadaama dowlad iyo qaarkood waa xildhibaano, cabdiraxmaan cabdishakuur waa xildhibaan,
marka maadaama uu xildhibaan yahay wuxuu isticmaalayaa kaarkiisa xildhibaannimada si adduunku uga helo madaxdeena Soomaaliyeed lacagaha meesha u kala yaalaan fahantaa joogada annaga oo shacabaa ma heli karno iyaga marka awooddaas leeyihiin war walaalow taas ayaa ku kalifaysaa ku dhahay ugu horreyn in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda hadda jirto sidoodaba la break up la kala tuuro oo cadeemaha muso hadda fiiri horta muuqaal idin wada Cabdiraxmaan Shakuur aan ku bilaawno dowladda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh saddex sawir picture ay aad aan ugu taajiro midka koowaad waa gabar yar oo iskuulka soo noqotay ee dharkii iskuulka qabta ee gurigeeda dunsan kor timid waa sawir koowaad ka labaad askari Soomaaliyeed oo Kenya iska dhiibay ma tahay mise maaha ku been abuuranaynaa mid saddexaad waa dad masaakiin oo meedo qabuuraha la faagay kii Raila Odinga ahaana waa kana asagana We are not interested in Kibaki's prescription for this solution to this problem. We want to have a durable solution that is acceptable to the majority of the people of this country. So he does not have to offer because he's not the winner of the elections. We need... باش ما حكى عقبه إلهي كود داري سلمك وفانت جوكو صوت Cabdiraxmaan Shakuur waxyaabaha kale uu dhahay waxa kamid ahay sida ogtihiin heshiiska Turkiga iyo heshiisyada faraha badan ee xashiq u soo galay ku leeyihiin baarlamaanka wuu iska saxiixay laakiin wixii ku qornaa lama horkeenin taas oo isla markii aad dareemaysid talaabadii iyo istiraatiijiyadii oo isticmaalay Raila Odinga inuu ku weeraro Mwai Kibaki oo awood fara badan lahaa waagaas ugu dambeyn ku kaliftay Mwai Kibaki inuu power sharing awood qaybsi uu la sameeyo Raila Odinga kadib markii cadeemo fara badan oo Soomaaliya laga soo bandhigay oo kaliftay in Kenya ay ku dhawaato dagaal sokeeye inay gasho iyo caalamkii oo soo gurmaday oo Mwai Kibaki yiri niyo adiga Soomaaliya lagu hayaa ninkan odaga ah ee power sharing la sameeyay Raila Odinga abu waagas sidaas uu ra'iisul wasaare ku noqday xubno fara badan oo asaga uu watan xildhibaanada ku gashtay xubno kale uu watan wasiirada ku gashtay sidaas oo ninkaas 2007kii awood buuxda oo maadaama uu weligiis madaxweyne noqon nasiib xun uu yahay laakiin awooda Kenya sidaas uu ku qabsaday oo ilaa maanta milyaneer iska dhuuqa waa nin meel walba ka dhaxmoodo sida aragteen waa nin qof walba madaxweyne ka noqday Kenya ninkaas jecel inay la heshiiyaan oo ay yani handshake la sameeyaan intaan hadda ku soo bandhigay haddaadan fahansaneen maalmaha soo socda bilaha soo socda waa fahmi doontaa saaxiib